nabiga sallallahu alayhi wasallam naftiisa ayaa ugu bandhigay qabaa'ilka in uu yahay rasuulka ilaahay maalmaha ay imaanayeen kacbada fadlan walaal ku salli rasuulka sallallahu alayhi wasallam muuqaalka like saar siin share gare commentiga ku qor saliga nabiga inta ku qoran yahay waxa ku socda ajir dambi dhaaf barnaamijka siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam maanta waxa uu leeyahay xiise gooniya ka faa'iideyso waxa rumaysay lix ansaarta kamid ah oo ilaahay ku gaar yeelay raali aanshihiisa waxa soo xajisay sanadkii dambe 12 nin nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa ayna la galay mubaayaco qarsoodi ah kadibna waa ay laabteen islaamkii ay ku faafiyeen magaalada Madiina islaamkii ay ku faafay Madiina waxa ay ahaatay hoygiisa iyo saldhigiisa sanadkii saddexaad waxa soo gashay 73 nin ee laba dumar ah oo qabaa'ilka Aws iyo reer Khasraj kamid ah nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa ila mubaayacoodeen waxayna ku ballameen inay xabiibka sallallahu alayhi wasallam difaacayaan haddii uu dhulkooda u soo hijroodo siday u difaacaan naftooda maalkooda awlaadooda iyo haweenkooda waxa magaalada Madiina loo diray saxaabiga jaliilka ahaa Mus'ab bin Umayr Allah ka raali noqde reer Madiina ayaa u dacwad ku faafiyay quraanka kariimka ayaa u baray rag fara badan ayaa gacantiisa ku soo islaamay waxa uu noqday macallinka Madiina sidoo kale waxa uu ahaa safiirkii ugu horeeyay ee muslimiinta Allah ka raali noqdo Mus'ab bin Umayr haddii aad jeceshahay ka sheekeynta siirada rasuulkeena suuban sallallahu alayhi wasallam muuqaalka like saar share garee commentiga qor saliga nabiga waxa ku socda ajri dambi dhaaf mahadsanid doonaysa inaad barato quraanka kariimka ah higaada carabiga kutubta shariicada islaamka ducooyinka adkaarta adiga jooga gurigaaga goobtaada shaqo hab online ah haddii jawaabtaadu ha tahay maxadka baytul xikma ayaa kula diyaara ee nambaradan hoos ku qoran kala xiriir mahadsanid